السلام عليكم ولكن مبارك محمود صليبان iyo channelkeeni Tayadoon Media waxaynu halkii ka siyaan baqaadaynaa taariikhdii taxanaa inoo ahayd ee dawladii Cusmaaniyiinta maantana waxaynu ka hadlaynaa taariikhdii Sultan Suleymaankii labaad haddaba daawadayaal inteena guda gelin muuqaalkeena fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambaanu soo gelin doono annagana ay noogu noqoto dhiirigelin kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta Sultan Suleymaankii labaad oo ahaa khaliifkii labaatanaad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta kaasoo boqortooyada xukumayay laga soo bilaabo sanadkii 1687 ilaa 1691 miilaadiga Sultan Suleymaan waxay walaalo ahaayeen Sultan Maxamedkii afraad iyo sidoo kale Sultan Axmedkii labaad oo xukunka uga dambeyn doona dhinaca noloshii hore ee Sultan Suleymaankii labaad Sultan Suleymaan wuxuu ku dhashay qasriga Tobaki Palace ee magaalada Istanbul 15 bishii Abriil ee sanadkii 1642 miilaadiga aabihii waa Sultan Ibrahimkii koobaad hooyadiisna waxaa la odhan jiray Sultanad Saliha asal ahaanna waxay ka soo jeeday dalka Serbiya Suleymaan 3 bilood ayuu ka yaraa walaalkiis Maxamedkii afraad oo isagu dhashay 2 bishii Janaayo ee sanadkii 1642 miilaadiga haddaba Sultan Suleymaan markii aabihii Sultan Ibrahimkii koobaad laga xayuubiyay carshigii boqortooyadii Cusmaaniyiinta isla markaana la dilay sanadkii 1648 miilaadiga walaalkii Sultan Maxamedkii afraad ayaa waqtigaa xukunka la wareegay haddaba intii uu xukunka hayay Sultan Maxamedkii afraad Sultan Suleymaanna inta badan noloshiisa wuxuu ku soo qaatay qasriga Tobaki Palace oo meeshii loogu talagalay in lagu hayo amiiradii boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyadoo laga hortegayo inay kacdoon sameeyaan ama ay isku dayaan inay inqilaabaan suldaanka wuxuuna halkaas joogay muddo 36 sano ah ilaa uu la wareegay carshiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1687 miilaadiga dhinaca caleema saarkii Sultan Suleymaankii labaad Sultan Suleymaankii labaad wuxuu xukunka la wareegay kadib markii walaalkii Sultan Maxamedkii afraad laga xayuubiyay carshiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta 8 bishii Noofembar ee sanadkii 1687 miilaadiga Sultan Suleymaankii labaadna sidii caadada ahayd waxa lagu caleema saaray masaajidka Aba Ayub al-Anzari 3 bishii Disembar ee sanadkii 1687 miilaadiga halkaana waxaa lagu guddoonsiiyey seeftii Cusmaan bin Ardaqrol oo ahaa aasaasihii boqortooyadii Cusmaaniyiinta waqtigaasna Sultan Suleymaan ma lahayn khibrad hogaamineed oo uu ku maamulo boqortooyadii Cusmaaniyiinta sababtoo ah noloshiisa inta badan wuxuu ku xidhnaa qasrigii Tobaki Palace weligiisna wax maamula hore uma soo qaban sidaas darteed wax khibrada uma lahayn maamulka boqortooyadii Cusmaaniyiinta haddaba waqtigan la caleema saaray Sultan Suleymaan xaaladda boqortooyadu sidee bay ahayd bal aan dib u yara milicsano kadib guul daradii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ka soo gaadhay dagaalkii Vienna sanadkii 1683 Austria waxay soo abaabushay isbahaysi masiixi ah oo ka kooban dalalka Jarmalka, Kurwaadka, Dutchka, Hungary, Isbaanishka, Talyaaniga iyo Jamhuuriyadda Finnish waxayna duulaan ku soo qaadeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1686 miilaadiga haddaba isbahaysigii ciidamada masiixiyiintu waxay qabsadeen magaalo madaxdii hore ee Hungary ee Buda sanadkii 1686 miilaadiga kadibna markii xoogagii isbahaysigii kiristaanku ay magaalada Buda ka qabsadeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta cutubyo ka tirsan ciidankii Serbiya kuwaasoo loo yaqaanay Serbian Militia ayaa ku biiray ciidamadii isbahaysigii masiixiyiinta ee ay hogaaminaysay boqortooyadii Habsburg ama Austria kadibna waxay u dhaqaaqeen dhinaca koonfurta iyagoo ku khasbay ciidamadii boqortooyadii Cusmaaniyiintu inay dib uga gurtaan dhulkii Hungary iyo gobolladii deriska la ahaaba dhulka ay ka saareenna waxaa ka mid ahaa gobollada Baka, Banat iyo Sirmaya oo waqtigan casriga ku taalla Serbiya loona yaqaano Vojvodina haddaba Cusmaaniyiintii waxay bilaabeen inay soo diyaariyaan duulaan la doonayo in dib loogu soo ceshado qaar ka mid ah dhulkii ay lumisay boqortooyadii Cusmaaniyiintu dhulkaana waxaa ka mid ahaa Hungary iyo imaaraddii Transylvania ciidanka Cusmaaniyiintana waxaa hogaaminayay sadrulacdamkii waqtigaasoo la odhan jiray Suleymaan Baasha waxaana dhacay dagaalkii labaad ee Muhakas
kaasoo dhacay 12kii bishii August ee sanadkii 1687 miilaadiga. dagaalkaas oo dhex maray ciidamadii boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo ciidamadii isbahaysigii Masiixiyiinta ee boqortooyadii Usteeriya ay hogaaminaysay. laakiin Sadrul Acdamkii Sulaymaan Baasha wuxuu kala kulmay isbahaysigii Salabiyiinta guuldarro fool xun oo ciidankii Cusmaaniyiinta si xun ayaa loo jebiyey. haddaba guushan ay gaadheen isbahaysigii Masiixiyiintu waxay abaabuleen duulaan hor leh oo ay ku qaadeen dhanka koonfureed, waxayna qabsadeen magaalada Belgrade sanadkii 1688 miilaadiga. haddaba intaa kumay ekaane waxay sii wadeen duulaankoodii, waxayna qabsadeen magaalooyinka Nice, Birisaran iyo Skopje sanadkii 1689 miilaadiga. haddaba guulaha isdaba jooga ee ay gaadheen isbahaysigii Kiristaanku, Suldaan Sulaymaankii labaad waxaa lagu qanciyey inuu Sadrul Acdam u magacaabo ninkii lagu magacaabi jiray Fidal Mustafa Baasha Kubraali, maadaama uu ahaa wasiir karti leh kana hortegi kara dagaalkii isbahaysiga Masiixiyiinta ee Usteeriya ay hogaaminaysay. sidaas darteed Suldaan Sulaymaan wuxuu Sadrul Acdam u magacaabay Fidal Mustafa Baasha Kubraali 25kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1689 miilaadiga. Fidal Mustafa Baasha wuxuu ahaa maamul yaqaan, muddo gaaban gudaheedna wuxuu ku guulaystay inuu saraakiishii militariga ee musuqmaasuqa waday waxna dilo waxna uu meesha ka saaro. wuxuuna ku qasbay ciidankii Inkishaariya inay adeecaan amarada, sidoo kalena wuxuu soo celiyey nidaamkii iyo kala dambayntii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. wuxuuna u magacaabay saraakiishii ciidankii Inkishaariya rag karti leh oo lagu aamini karo jagooyinka hogaaminta ciidanka. wuxuuna dib u habeyn ku sameeyey nidaamkii ururinta cashuuraha, wuxuuna ka badbaadiyey dowladda dhaqaala burbur, wuxuuna kor soo qaaday dhaqaalihii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. haddaba markii uu soo celiyey nidaamkii iyo xasiloonidii boqortooyadii Cusmaaniyiinta, wuxuu isu diyaariyey sidii uu uga guulaysan lahaa isbahaysigii Masiixiyiinta. sidaas darteed wuxuu ku dhawaaqay jihaad, wuxuuna bilaabay abaabul militari. dhinaca kale, dagaalkii u dhexeeyey boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo isbahaysigii Masiixiyiinta ee boqortooyadii Usteeriya ay hogaaminaysay ayaa sii xumaaday kadib markii Ruushku si rasmi ah ugu biiray isbahaysigii quwadaha reer Yurub, isagoo dagaal ba'an ku soo qaaday dhanka Crimea oo hoos iman jirtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidaas darteed Suldaan Sulaymaankii labaad wuxuu si degdeg ah uga codsaday boqorkii Mogoolka ee Indiya, kaasoo la odhan jiray Aurangzeb, inuu ka caawiyo dagaalka isbahaysiga waddamada Yurub. laakiin xoogagii Mogoolku badankoodu waxay ku jireen dagaallo, sidaas awgeed way iska indha tireen dalabkii Suldaan Sulaymaankii labaad. haddaba markii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay taageero ka weyday boqorkii Mughal ee Indiya, Cusmaaniyiintii waxay lumiyeen taageeradii ay u hayeen Crimea. sidaas awgeed Crimea waxay ku qasbanaatay inay iska difaacaan duulaankii Ruushka. dhanka kale, Fidal Mustafa Baasha wuxuu dagaal ku qaaday isbahaysigii Salabiyiinta, isbahaysigaasoo ay hogaaminaysay Usteeriya sannadkii 1690 miilaadiga. Sadrul Acdamkuna wuxuu ku guulaystay inuu dib u qabsado magaalooyinka Nice, Fidiin iyo magaalada Gulubaag. kadibna wuxuu go'doomiyey magaalada Belgrade. ugu dambayntiina 8 bishii Oktoobar ee sannadkii 1690 miilaadiga ayuu Fidal Mustafa Baasha dib u qabsaday magaalada Belgrade oo markii hore ay qabsadeen Usteeriya iyo isbahaysigeedii sannadkii 1688 miilaadiga. sidoo kale ciidamadii Cusmaaniyiintu waxay burburiyeen kacdoonkii Makedoniya iyo Bulgaariya, kuwaas oo doonayay inay ka madax bannaanaadaan boqortooyadii Cusmaaniyiinta. ugu dambayna 19kii bishii August ee sannadkii 1691 miilaadiga, Sadrul Acdamkii Fidal Mustafa Baasha waxaa lagu dilay dagaalkii lagu magacaabi jiray Salankamen, kaasoo ka dhacay agagaarka gobolka Zayrmaya oo wakhtiga kan ku yaala Serbiya, loona yaqaano Vojvodina. haddaba dhinaca dhimashadii suldaanka, Suldaan Sulaymaankii labaad wuxuu ku dhintay magaalada Adarna 22kii bishii Juun ee sannadkii 1691 miilaadiga, waxaana lagu aasay masjidka Sulaymaaniya ee magaalada Istanbul. waxaana xukunkii ka dhaxlay walaalkii Suldaan Axmedkii labaad. maantana halkaa hay noogu joogto. wassalaamu calaykum.